kubad sameeyaha kooxda kubadda cagta Manchester City Kevin De Bruyne ayaa wadnaha jiray jamaahiirta iyo faaniska xulkiisa Belgium waxa uuna sheegay bisha soo socota ee November oo biri bilaabanaysa koobka adduunka ka bilaaban doona wadanka Qatar inuu iska fariisan doono markii uu soo dhamaado ciyaaraha caalamiga ah. لاعبkan khadka dhexe uga ciyaara xulka Belgium iyo naadiga reer Ingiriis ee Manchester City ayaana hadalkaas waxa uu nabar weyn ugu geystay xulkiisa Belgiumka ee taageerayaasha iyo dhammaan shacweynaha xulka Belgiumka maadaama ay yihiin laacib ay si weyn ugu tashanayaan xulka Belgiumka aysan kana maarmin 2024 iyo 2026 koobka adduunka iyo Yurada ka dhici doonta dhammaan qaaradda Yurub. Saaxiibayaal laacibkan reer Belgium ee lagu magacaabo Kevin De Bruyne waxa uu sheegay in da'diisa oo si kordhaysa uusan ku sii tari doonin saameyntiisa naadiga xulkiisa Belgiumka. waxa uu sheegay laacibkan lagu magacaabo Kevin De Bruyne inuu iska fariisan doono xulka Belgiumka iyo dhammaan ciyaaraha caalamka oo dhan markii ay soo dhamaado koobka adduunka ee sanadkan 2022 November ka bilaaban doona wadanka Qatar kaas oo ah wadan waaweyn iska hormaan doonaan. xulkan ayaa 2018 wuxuu kaalin saddexaad ka soo galay World Cup-kii ay ku guuleystay xulka Faransa. xulkan oo soo reebay xulal badan oo kamid ah xulalka Brazil ayaa sanadkii 2018 waxa ka sameeyay adduunka oo dhan ama koob ka dhacay wadanka Russia wax walba. marka saaxiib iyo laacibkan ay aad uga naxan jamaahiirta Belgiumka waa laacib kubad sameeyaha waa laacib ay ku tirsan tahay naadiga lagu magacaabo Manchester City waa laacib mar walba caawinta ugu badan ama goolasha ugu badan u dhalaya kooxda lagu magacaabo Manchester City. xulka Belgium kama marmaan laacibkan lagu magacaabo Kevin De Bruyne maadaama uu yahay laacib mar walba u abuuray boonaasha dhalinayaan xulka Belgiumka sanadkana waa ka silita sanadkii 2018 waana ka saameeyay yahay xulka Belgiumka sanadkii 2018 joogay sanadka 2020 xulka Belgiumka jooga aad ay u kala hooseeyaan. saaxiibayaal waxa uu nahay sanadkii 2018 in xulka Belgiumka loo saadaalin kale ku guuleystay koobka adduunka maadaama uu ahaa murqaweyn waxaan u ciyaariyay laacibka lagu magacaabo Eden Hazard oo 3 sano ee la soo dhaafay dhaawac uu buuxsamay ama dhaawac darsi la ahaa markuu joog ku soo biiray naadiga lagu magacaabo Real Madrid kana soo tagay garoonka Stamford Bridge. saaxiibayaal marka xulka Belgiumka oo sanadihii la soo dhaafo dhan ahaa xul aad u adag dayar fiican haysta laakiin waxa uu sanadka 2022 inuu saameyn badan ku lahayn koob ka dhici doona wadanka Qatar. koobkan ayaa loo saadaalinaya inuu ku guuleysan doono ama guusha ugu weyn ay qaadi doonaan dalka lagu magacaabo Brazil oo sanadkan meel walba ka dhisan xulka ka soo jeeda Latin America ayaana sanadkan loo saadaalinaya ama Belgium ama Argentina. saaxiibayaal laacibkan waxay uga dhigan tahay inuu ka fariisto ciyaaraha caalamka oo dhan. laacibkan wuxuu u yahay muqaddis ama wuxuu u yahay tiir dhaxad ayuu u yahay laacibka lagu magacaabo Kevin De Bruyne xulka Belgiumka. marka saaxiibayaal waxay noqon doontaa arrin aad u cakiran maadaama laacibkan uu iska fariisanayo xulkiisa asagana saameyn weyn ay ku reebaysaa dadka kale ee faaniska u ah xulka Belgiumna dib weyn ay ku tahay siba waxa shak weyn ka sii galay xul naadiga lagu magacaabo Manchester City maadaama laacibkan laga yaabo inuu dhawaan iska fariiso ciyaaraha adduunka oo dhan maadaama uu yahay laacib aad u sii tababaranaya waxa uu sheegay da'diisu awaaneyn laakiin tabartiisa aad u soo kooban tahay ayuu sheegay laacibka reer Belgium Kevin De Bruyne. saaxiibayaal wararkeena ku saabsan Kevin De Bruyne iyo wararkiisii iska fariisiga ciyaaraha intaas aan ku soo gabeynaa waa ku mahadsantihiin saaxiibayaal tan qaadkiina.